afartan arday ee horteena ka muuqata waxay sameeyeen falxatooy oo la yaab leh waxaana jaamacad lagu magacaabo Pennsylvania kuna taala dalka City Mareykanka library-ga jaamacadda City ee ka xadeen buugaag qiimahoodu uu gaarayo 12 milyan oo dollar afartan arday falka xatooyada u geystay jaamacadda City lagu magacaabo Pennsylvania waxay ku tilmaamnayeen inay ahaayeen arday wanaagsan mana laga filaynin falka xatooyada ay geysan karaan sababtana waa in lagu yaqaan wanaag ardaydan horumarka aan looga diiwaan gelinin wax dambiyo oo marka la xiriira falal xatooyinimo muuqaalkan waxa ku eegi doona sababta ardaydan ay ku dhalisay in buugagta qiimahoodu uu badan yahay ee ka xadan jaamacadda City lagu magacaabo Pennsylvania library-geeda iyo waliba sida marka ugu suurta gashay in falka xatooyada marka ay sameeyaan balse intaan ugu gudgelin muuqaalka marka la wax ku xusuusina in muuqaalkan like gareyso sina share gareyso haddii aadan ka mid yahin bahweynta nagu xiran inaad nagu soo biirto waad ku maasantahay waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aanu gudagalno muuqaalkeena maanta afartan arday ee falka xatooyada u geysatay library-ga jaamacadda Pennsylvania kana qaatay buugagta qiimahoodu uu badan yahay waxa marka ay ku noolaayeen magaalo lagu magacaabo Lexington kana tirsan gobolka Kentucky ee dalka City Mareykanka waxaan afartan arday ee falka xatooyada geysatay lagu kala magacaaba Spencer Reinhardt, Warren Lipka, Eric Brock iyo Jess Allen ardaydan afarta ee falka xatooyada u geysatay library-ga jaamacadda si gaar ah laba kamid ah oo lagu magacaabo Spencer Reinhardt iyo Warren Lipka waxay ahaayeen saaxiibo si gaar ah isu garanaya waxayna saaxiibnimadoodu soo bilaabatay xilliyadoodii da'ad ahaan ay jireen 8 jir waxayna wax ka wada baranayeen jaamacaddan ay dhaca ay u geysteen library-geeda ee lagu magacaabo Pennsylvania jaamacaddan dhaca loo geystay library-geeda laguna magacaabo Pennsylvania waxay ka mid yahay jaamacadaha waaweynka ee ku yaala gobolka City Kentucky ee dalka City Mareykanka waxaana jirta library-gan sida gaarka marka City u sameysay jaamacaddan in marka ay ku xafiday buugag ay ku qorayeen taariikhiyo fog iyo kuwa muhiim u ah jaamacadda iyo cilmi baarisyada intaba waxaana jaamacadda Pennsylvania ku qalabaysay library-ga sida gaarka ay ugu sameysay buugagtaas inay ku kaydiso malaayiin dollar buugagta jaamacadda Pennsylvania library-geeda sida gaarka ay ugu xafiday waa kuwa suuqyada marka qiimo ahaan ka goynaya lacag badan waxaana jirta in damac marka uu ku dhashay afartanayda arday iyagoona marka isku tusay haddii library-ga jaamacaddan ay ka xadaan buugag ilaa xoogaha ah in lacag badan ay kaga iibsan karaan suuqa waxaana jirta xitaa qiimeyn marka City la sameeyay buugagta ardaydan ee library-ga jaamacadda Pennsylvania ay ka xadeen qiimo ahaan marka City lagu qiyaasay inay gaarayaan 12 milyan oo dollar 2004 waa sanadka afartan arday ee guda galeen qorshooda dhaca ay ugu geysanayeen library-ga jaamacadda ay dhiganayeen laguna magacaabo Pennsylvania waxaan cajiib ahayd qaabka howlgalka ay u fulinayeen afartan arday in marka ay ka soo meenguriyeen film marka ay daawadeen waxaana jirta dhammaan afartan arday inay soo diyaarsadeen agabyadii ugu baahnayeen in marka ay ku fuliyaan howlgalkan xatooynimada ay sameynayaan ayagoona sidoo kale samaystay magacyo afgarasho marka City isku yaqaanaan isuguna wacaan inta howlgalkan xatooynimada ay ku guda jiraan bilowga howlgalkoodan xatooyada afartanid arday waa kuwa si gaar marka ugu soo libistay muuqoodan marka u bedelay waxaan afartan arday muuq ahaan marka iska soo dhigeen rag odayaal ah waxaana marka ay sameeyeen in marka ay soo xirtaan suudad wajiyaal macmalan ay soo sameystaan madaxa iyo gararka afartan arday waxa marka ay ku soo sameysteen timo buruka ah waxaan ugu muhiimsan oo sababta marka saas marka muuqooda ugu bedelayeen ay ahayd falkan xatooyada marka ay sameeyeen kadib in afartanid arday wax raad oo dhankooda marka aanan la helin afartan arday waxa marka ay sameeyeen in dhismaha guud ee jaamacadda marka ay ku soo wareegaan si xoraansi marka ay ugu sameeyaan waxaan xoraansigood ugu muhiimsanay in marka ay qiimeyn ku sameeyaan sida falkoodan xatooyada jaamacadda dhismeedu uu kaga hirgeli karo sida library-ga jaamacadda xatooyo marka ay ugu geysan karaan iyo waqtiga marka City ay ku habboon tahay falkan xatooyada marka inay sameeyaan qiimeyn guud afartan arday marka City inay sameynayeen maadaama library-ga gaarka ee jaamacadda buugagtan ay ku xafiday si gaarna marka ay u ilaalinaysay waxa jirtay islaam mas'uul kaga ahayd jaamacadda in library-ga City mas'uuliyadiisa ay u ilaaliso afartan arday falka xatooynimada sameysay bilowga howlgalkooda waa kuwa marka isku tusay in islaanta City ay ku qanciyaan in library-gaas gaarka ee jaamacadda ay u furto si buugag ay kaga soo akhristaan waxa jirta in ardaygan oo lagu magacaabo Spencer Reinhardt kana mid ah afartan arday falka xatooynimada sameysay xilligaasna maray semesterka ugu dambeeyay jaamacadda in email marka uu qoray isagoon u sheegay in semesterkii ugu dambeeyay jaamacadda uu marayo doonayeen in library-gaas gaarka ay u furto si buugag halka uu kaga soo akhristo islaanta library-ga gaarka jaamacadda mas'uulka uga ahayd emailka uu soo qoray ardaygan lagu magacaabo Spencer Reinhardt waxa marka City kaga soo bixisay jawaab wanaagsan iyadoo marka uu sheegayso in balan marka uu ka soo qabsado maalinna marka ogolaashay uu siinayso in library-ga jaamacadda ay u furto si buugag halka marka uu kaga soo akhristo nasiib wanaag maalintii ay doonayeen ardaydan in howlgalka marka City xatooynimada ay ku dhaqaaqaan ahaydna 16 December 2004 maalinta uma suurtagelin in howlgalkoodan ardaydan ay ku dhaqaaqaan sababta waa in islaanta maalinta City library-ga gaarka jaamacadda mas'uulka ka ahayd aan la heli karin waxaana ay ballamisay maalinta ku xigto ah 17 December 2004 maalintaasna waxa marka City dhacday in afartan arday howlgalkoodan xatooynimada si dhameystiran u fuliyaan abarkooy 10 barqanimo ama 5 saac subaxnimo maalintii ku aadanayd ardaydan maalinta la ballamiyay waqtiga
kuna aadaneed maalinta 17 Diseembar 2004. ardaydan waa kuwa si dhammaystiran ugu soo diyaar garoobay in howlgalkoodaniti marka ay fuliyaan, waxaana marka isku soo kala qaybiyeen qaab ah in mid markaasiti uu kaxeeya gaariga ay ku baxsan doonaan, midna library-ga hortiisa jaamacadda u istaago bannaanka, labana waxa markay u gudbeen dhismaha library-ga gaarka ee jaamacadda. waxaana jirtay in labada marka gudaha u gudubtay in marka library-ga loo furo kadib ay sameeyeen in islaanta library-ga gaarka jaamacadda mas'uulka kaga ahayd ay garaacaan xirxiraanna. waxaa marka ay ka soo qaateen buugagti marka ay doonayeen library-gaas gaarka inay ka qaataan, ayagoona ugu dambeyn 40 arday ku baxsaday gaariga marka ay soo diyaarsadeen. fulinta howlgalkoodan xatooynimada kadib 40 arday oo kuwa ku dhaqaaqay siday u iibgeyn lahaayeen buugagtaasi ay soo xadeen qaab suuq madow ah, waxaana laba ka mid 40 arday falka xatooyada geysatay ay aadeen magaalada New York si halka ay kula soo kulmaan kuna soo qanciyaan in buugagta marka uu ka iibsado nin ay xogtiisa hayeen, waxaana ninkaasi lagu magacaabaa Thomas Lucky. imaatinkooda magaalada New York kadib labadan arday uma aysan suurtagelin in marka ay arkaan ninkii ay u soo baxeen safarkana marka u soo galeen in marka ay ku qanciyaan fikirka markaasi ay doonayeen, balse waxaa jirta xogeynta markaasi ninka inay la kulmeen. waxaan xogeynta marka u sheegtay in ninka marka haatan u socdaan labadan arday ee lagu magacaabo Thomas haatan xafiisku ka maqaya oo aysan ishaleeli karin, ayaduna marka u sameyn karto in ciwaanada markaasi ay ka reebta labadan arday dibna ay kala soo xiriiri doonaan. asbuuc kadib xogeynta emailka markaasi ay ka reebtay labadan arday waxaa jirtay in fariimo markaasi isku weydaarsadeen. dhanka kale boolisku waxa marka jirtay in baaritaanadooda ay xoojiyeen dhana kala duwan baaritaan iyagoo ka sameynaya, waxaana baaritaanadaasi xitaa marka ka mid ahaa in emailada loo soo diray islaantan library-ga gaarka ee markaasi jaamacadda la jabsaday mas'uulka ka ahayd in fariimaha markaasi loo soo diray dib markaasi u eegaan. boolisku waa kuwa cadeymo ka dhaxelay ragganet emailada markaasi u direen islaanta library-ga madaxda ka ahayd in booliska marka dabakac ay ku soo sameeyeen ciwaanka markay adeegsanayeen 40 arday, waxaana booliska marka ay sameeyeen in ogolaansho marka ay weydiistaan shirkadda Yahoo in ciwaankaas meelaha kale markaasi uu la sii xiriiray in marka ay ogaadaan. boolisku waxa baaritaanadooda kale ku sii ogaadeen intii ku guda jireen in ciwaankaniti uu la sii xiriiray meelo kale isagoo fariimo markaasi u diray doonayna marka buugag in marka uu ka iibiyo. ugu dambeyn waxa booliska markaasi u cadaatay in raggan 4 marka mas'uul ay ka ahaayeen falkaniti dhacay, waxaana ugu dambeyn booliska 2005 horaanteeda 40 arday ee falka xatooyada u geysatay library-ga gaarka ee jaamacadda Pennsylvania kuna taala dalka Mareykanka gacanta ay ku soo dhigaan, waxaana markaasi la wajihiyay xukunkooda maxkamad, waxaana midkiiba lagu xukumay min 7 sano oo xabsi ah.